سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. qaybtii hore ee abuurka dunida waxaan ku soo qaadanay abuuritaanka arlada iyo qiyaasidda quudkeeda iyo deegaanadeeda 4 maalin ka hor abuuritaankii samada iyo in asalka ifkaan ama koonkan uu ahaa qiiq iyo wareegyada ay soo mareen unkanka ama qaab samaysanka cirka iyo dhulka uu alla weyne uu ku sameeyey 6 maalmood. haddaba qur-aanka kariimka wuxuu tibaaxay asalka mid ka mid ah halka meel uu ka soo wada jeedo ifkaan maadiga ah, wuxuuna qur-aanka uu soo bandhigay xaqiiqooyinka koonkan ee la xiriira oo aanan wax shaki ah ku jirin kuwaasi oo aan horay bini'aadamku u ogayn. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ma waysan kuwa gaalooba ogaan inay cirarkii dhulku isku dheganaayeen sida hal gabal ama hal cad oo isku yaal oo aan dabadeed kala fujinnay oo aan ka abuurna biyo wax waliba oo noola ah, ma waysan haddaba rumayn doonin. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. waxaan u yeelnay dhulka buuro adag oo sugan si uusan ula dhaqaaqin, waxaan u yeelnay dhexdiisa jidad haloosi ah, yacni waddooyin weynin iyo ballaarni isku darsaday bal si ay ugu toosnaadaan. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. waxaannu ka dhignay samada saqaf yacni dabool xafidan oo si wanaagsan loo ilaalshay, sida oo ay tahayna bay haddana weli ka jeesadaan calaamooyinkeenna waa qoraxda, dayaxa, dabaylaha, duruuraha iyo kuwa la midka ah. haddaba sida uusan ilaa ay hadda u gaarin cilmigan ugubka ahi ka warkeenka asalka ifkaan maadiga, iyadoo haddana aqoon-yahanada iyo injineerada arrimahan ku xeesha dheeri ay ka gaareen guulo wax ku ool ah oo aad u waaweynaa, waxayna arrinkaasi ka dheefeen wax badan daraasiintii ay sameeyeen arrimaha iyo walaxda maadiga ah ee la gaarka tahay iyo adeegsiga tamaraha koonkan ee dhex taal. waxaynu hadda garanaynaa qaabab badan oo kala gedisan oo loo adeegsan karo korontada, sida diirsiga la isku kululeeyo, isku daaweynta, iftiinsiga, mashiinada ku shaqeeya korontada, baabuurta iyo tareennada oo iyagana korontada loo adeegsado, iyo waxyaabo kale oo korontada loo adeegsado oo badan. haddana si rasmi ah uma garan karno waxay tahay korontadu, waxay iyaduna ay la mid tahay iftiinka iyo diirimaadka ama kulaylka oo aynu ula baxnay magacyo aan ku garanno oo innagu aan u samaysana uun. inkastoo cilmigani cusub in badan uu isku dayey inuu ogaado aasaaska ifkaan maadiga ahi uu ka soo unkamay, dadaal badan waxay ku bixiyeen in si dhab ah ay ugu gungaaraan aatamka, haddana waxay u muuqataa mid ay ku hungoobeen. xilli aan sidaasi u sii fogayn waxay aaminsanaayeen aqoon-yahanada inaan la kala qaybin karin aatamka oo aan walxa yaryar loo kala furfuri karin ama tamar laga dhalin karin, balse markii la bartay qaababka loo burburiyey aatamka waayaheenna ayay u suura gashay in la isku raaco in la kala qaybin karo aatamka, tamarta xooggan ee gudihiisa ku keydsanna laga soo saari karo. tolow gaaskaasi ama tamartaasi xooggan ee ifkaani maqiiqii uu ifkaani maadiga ah uu ka samaysmay ee qur-aanka sheegayba, mise qiiqaasi waxaa loola jeedaa uurada gaaska ah ee kulul inta ay aagaga waaweyn ee ifka sare isugu tagaan ama ay isugu ururaan ee xidiguhu ka samaysmaanba. aqoon-yahanada aatamka sannadihii u dambeeyey ayay ogaadeen kala qaybinta aatamka, waxayna ogaadeen inuu ka kooban yahay 3 aatam yare ama sabatomig oo kala ah electron, proton iyo neutron, oo kala qaybintaasi aatamku waa tan u suura gelisay inay sameeyaan hubka nukliyeerka. alla weyne subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay wamaa yaczubu can rabbika
من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. oo waxnana kama daahsoona rabbiga haba ahaadeen wax la eg saxar yacni aatam ama quraanjo yar oo dhulka korkiisa ah ama cirka gudihiisa ah mana jiraan wax ka yar ama ka weyn oo aanan ku qornayn kitaabka cad. ereygaasi asqar ama ka yar ee aayadda ku jira waa fasiraad cad oo tibaaxinaysa in aatamka la kala qaybin karayo ereyga kale ee ku jira isagana walaa fi samaa'i iyo cirka gudihiisa ku sugan wuxuuna isagana muujinayaa in aatamyada dhulka yaalla walxo la gaar yihiin isla aatamada samada yaallana ay la gaar yihiin ayna yihiin isla kuwa ay ka kooban yihiin qoraxda xidigaha iyo meerayaasha kaleba. haddaba waxaa isweydiin mudan talow xaggee ayuu moxamed binu cabdullaahi sala allahu calayhi wasallam isagoo ummi ahaa oo aana waxba qorin waxna aqrin ka keenay aqoonta intaas la eg ee ku aadan aatamyada kala qayqaybintooda iyo kuwa ifka sare yaalla iyo kuwa dhulka yaalla inay isku hal yihiin uun. maa dalla saaxibukum wamaa gawaa. rafiiqiina moxamed sala allahu calayhi wasallam ma dhumin oo ma habaabin. wamaa yantiqu cani lhawaa. oo kama hadlo wax hawadiisa ah. in huwa ilaa waxyun yuuxaa. oo waa keliya waxyi loo waxyooday wuxuu ku hadlo. callamahu shadiidul quwaa. waxaa laga baray qur-aankan oo xagga rabbigiisa ka soo gaarsiiyey mid leh awood xoog badan oo jibriil ah. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. waxaan tusin doonaa iyaga calaamooyinka ka muuqda koonka iyo nafahoodaba jeer ay u noqoto caddaan in qur-aankani uu yahay xaq ma wuusan ku filnayn rabbiga inuu isaga ka yahay markhaati wax waliba. بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم.